waxaynu galeynaa kaftankii siyaasadda marka ee Puntland laba arrimood baa awal jiray moogtay labada arrimood meel ay constitution kaga qodan tahay la garan maayo laakiin dadku way iska ictiqaaday waxa la ictiqaaday gaalkacayo garoowe iyo qardho dadka aan ahayn waxay ictiqaadeen madaxtinimada Puntland inay saddexdaad tahay qoladii saddexdaad deganeedna waxay ictiqaadeen inay samaawi tahay oo iyagu bahasha leeyihiin mid saddexaad baa ku soo biirtay waxa ku soo biiray bahashi inay wareegto tahay oo xarig isku dhiib tahay oo hagba tahay adama fahamtay shalay faroola joogay cabdi wali baa jooga qardhaa doorkan isa siisay 30 baa ka sharaxan garoowe laba ka sharaxan gaalkacay laba ka sharaxan war arrinku sidaa ma Puntland waa loo simeeyay meesha doontid joog hadda ma fahamtay buuga kuma taal dastuurka kuma taal constitution kuma taal qof allaale qofkii doona way soo sharaxi kara waa adiga iyo kartidaada iyo hankaaga iyo beesadaada arrinka dadku inuu aaminay in dadku arrinka aaminaan idin sheegaya galabta markaan soo socday niman reer mudug ah oo calool xaaran oo iyagu kaftama baa jira baan soo maray moogtay waxay yiraahdeen wareed xagee ku socotaa markaasaan ku wariyo nin waxa la yiraahdaa caawa xaflad leh nin baa igu yiri juxu ninkii reer garoowe soo ahaa maha wasiirka ahaan jiray waxaan ku yiri haa waa waree war xagee ku sharaxaya waqtigiisiba lama joogay waa maxay xaqdaaftan wuxuu igu yiri xafladda qaban qaabinaya markaasaan ku anigu dadka ma kala aqaanay nin soo dhaleeyra soo dhukii reer waraaba garoon miyaan ahay ma nimankii dastuurka wax ka dhigay war meesha maxaa loogu ciyaaray war in adeero shaqaan ku socdaa fariinta iga qaad buu yiri wuxuu ku leeyahay war yaa duxaayo ee kada fariintu soo fariya moogtahay war yaa duxaayo nin waa arago wasiir hayo waa yeelabaatay wixii wanaaga wada jirkeena wuxuu dhimaaya hal laga waabto buu leeyahay wareegto weeye wareegto taas waa ictiqaadsan yahay moogta wareegto weeye madaxtinimadu wariisadaada doorkeedii maaha iyagu xafadaada doorkan ma leeyahay moogta walaal cismaan baa wiyeerka maanta wadaamihiisa u weel banaystay intuu wabxaayo yaan laga walaaqin weligii waxaa soo kale maaragtay anigii baa markaa xanaaqay moogtahay waxaan ku yiri wariyaahe warday waxaad wadaa mar waa Rashiid mar waa Risaab markaasuu yiri waa waradigu siyaasadda waaba ka dhaxsan tahay ma labadii baad ogeeydaa war wallahi mid baa ku soo biiray Cabdi Rauf la yiraahdo macnaha markaasaan ku yiri Cabdi Raufke dad miir saaxadda digar waa soo gashay uu yiri war wallahi mar waa Rashiid oo mar waa Risaab oo mar waa Rauf waa ku jeedayo waxa soo wadaa inta kale ma rooti baa waligaaba dhayaa ku joojinaya aad baad u mahadsantiin madaxweynaha waxa leenahay adigoo juxaa soo dhaw adigoo Cabdi Faarax soo dhaw war wallahi adoo Cabdi Rauf soo dhaw